Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo ka socda wadamada deriska kuwaas oo ku howlgala magaca AMISOM waxaana 2007 ay soo galeen gudaha dalka Soomaaliya xilligaasi oo ay garbinayeen dowladii ku meel gaarka ahayd oo hogaaminayay Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. ciidamadan oo xilligaasi ahaa ciidamo tiro yar isla markaana ka socday dalalka Burundi iyo Uganda ayaa waxaa loo qorsheeyay inay amnigooda u xaqiijiyaan garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho kuwaasi oo barac Yemen kaga sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa markii dambe loo ogolaaday inay noqdaan ciidamo dagaal la gala xarakada al-shabaab oo xilligaasi awood fara badan ku yeelatay magaalada Muqdisho. ciidamada Afrikaanta ayaa xilligaani waxa ay ka socdaan dalal badan xilli markii hore ay koobnaayeen wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo dalal kale oo Afrikaan ah ayaa waxa ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya waxaana ay geystaan dhibaatooyin fara badan. ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya oo loo keenay inay xaqiijiyaan amniga dalka ayaa xilliyada qaarkood waxay gabadfalo aan geed loogu soo gamban ay ku qaadaan dadka shicibka ah waxba galabsan ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. ciidamada Ethiopia oo qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa ah kuwa ugu dhibaatada badan xilliyada qaarkood waxaana ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed. ciidamada Ethiopia ayaa inta badan waxa ay ka howlgalaan gobolada Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobolka Gado waxaana wadar jeero hore ciidamada Ethiopia tacdiyo isugu jira dil iyo xarig iyo kufsiba ay u geysteen shacab Soomaaliyeed oo ku sugan gobolada Bay, Bakool, Gado iyo gobolka Hiiraan balse dowladda Soomaaliya wax tilaabaha kama aysan qaadin ciidamadaas Ethiopia. weerarkii ugu xanuunka badnaa oo ciidamada Ethiopia oo ku howlgalaya magaca AMISOM ayaa waxa ay ka geysteen deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay halkaasi ay ku dileen 12 ruux aan waxba galabsan kuwaas oo joogay goob siyaarad lagu dhigayay isla markaana ay iskorsaareen tiro ka badan 10 ruux. ciidamada Ethiopia ma ahan oo kaliya ciidamada gaboodfalada ka geysta gudaha dalka isla markaana ka howlgala magaca AMISOM aan waxna laga qaban isla markaana waxna la iska weydiin dhibaatada ay ka geysanayaan gudaha dalka ayaa waxa ciidamada Uganda oo qaybta ka ah AMISOM ayaa waxa ayagana inta badan ay qaabilsan yihiin gobolka Shabeellada Hoose waxaana dhibaato badan ay u geystaan shacab badan oo ku sugan inta u dhaxayso magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolka. ciidamada Uganda ayaa waxa ay dileen in ka badan shacab Soomaaliyeed oo ku sugnaa gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dowladda Soomaaliya weli tacdiidaasi aysan wax ka qaban. dowladda Soomaaliya ayaana mararka qaarkood aysan ka hadlinba dhibaatada ay u geystaan ciidamada AMISOM. baawurta qofilan ay wataan ciidamada AMISOM ayaa xilliyada qaarkood jira dadka shicibka ah ee mara wadooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka. ciidamada Burundi ayaa sidoo kale qaybta ka ah midowga Afrika ayaa waxa tacdiye ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed inta badanna ciidamadaasi Burundi waxa ay qaabilsan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. wadar jeero hore ayaa ciidamada Burundi oo qaybta ka ah AMISOM waxa dhibaato badan ay u geystaan shacab Soomaaliyeed kuwaas oo ku sugan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo magaalada Muqdisho. weerarkii ugu dambeeyay ayaa ciidamada Burundi waxa maalintii shalay aan ka soo gudubnay ay ka geysteen deegaanka suuqa xoolaha degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dileen in ka badan 10 ruux halka ku dhawaad 20 kalena ay ku dhaawaceen. mana jirin wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan gaboodfalada iyo gumaadka shacabka loogu geysanayo magaalada Muqdisho. ciidamada Burundi oo saldhigyada ku leh qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada Maslax ayaa markii isaga kala gooshayeen fariisimaha ay ku leeyihiin Muqdisho gaar ahaan deegaanada Xeelo Bariise warshadii hore ee baastada Shaleema Cabdiwaayeel Soos iyo xirada Maslaxba dhibaato badan ay u geystaan. weeraro marka lagu qaado Afrikaantu waxa ay bilaabaan madaafiic iyo hub culus inay ridaan maadaama aysan u jeedin cidda ay la dagaalamayaan. ciidamada AMISOM ma yaqaanaan shabaab, shacab ama dowlad isla markaana Soomaalidu ay isu mid ay u yihiin isla markaana ay bartilmaameedsadaan. ciidamada Kenya ayaa qayb ka ah ciidamada dhibaatada ka geysta gudaha dalka gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado.
ciidamada Kenya ayaa loogu bartay inay dhibaato ay ka geystaan goboladaasi aan kor ku soo xusnay ee Gado Jubbooyinka, waxaana wadar jiro hore xoolo dad shicib ah iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuudba ay gantaalo dhanka cirka ah ay ku garaaceen, balse ayagu ay ku xanxantaan ama ay sheegaanba in ay bartilmaameysadeen xubno ka tirsan xarakada shabaab. Ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa ugu daranba inay dhibaato ay u geystaan shacabka. Xilliyada qaarkood xadka Soomaaliya ay la wadaagto Kenya waxa ay ka geystaan dhibaatada ugu badan, waxaana dowladda Soomaaliya ay iska hindhatiraysa inay wax ka qabato arrintaasi. Afartii hogaamiye ugu dambeysay dalka soo maray waxaa dalka ku sugnaa ajaanib fara badan oo beretaarayay ayaga, islamarkaana aysan la xisaabtamin, waxaana ay sheegi jireenba dowladda Soomaaliya qaarkood in ay ku saxsan yihiin howlgallada, kuwaasina dhiigooda lagu daadinayay shacabka masaakiinta ah ee Soomaaliyeed. Isku soo wada duubo, ma laga yaabaa in Afrikaanta xisaabtan dhab ah lagu sameeyo, islamarkaana miiska lasoo taago dadkii ka dambeeyey dilalka fara badan. Wadarta guud inta ku geeriyootay gacanta ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay ku dhowaad 2,000 oo ruux. Ma shabaaba mase waa shacab, hase ahaatee wadankani ma shisheeye baa iska leh mase Soomaali ayaa iska leh. Ismaaciil Abuukar Kasmaal Group, Muqdisho.